kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir oo la cadeeyay inay isku dhiibeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya kadib dagaal culus oo shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo weliba Gurceel. qaar ka tirsan ciidamada Jubbaland ee Mandheera oo la sheegay inay u goosteen dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ciidan dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay Dhuusamareeb iyo xaaladii ugu dambeeyay Dhuusamareeb ayaan idiin soo gudbin doonaa anagoona sidoo kale dib u eegi doonaa xaaladda dhabta ah ee iminka ka jirta deegaanada Jubbaland iyo Galmudug xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay u muuqato inay maqoonisay awoodii hoggaanka Ahlusunna wal Jameeca oo muddo ka arriminayay guud ahaanba deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. warkii oo dhan Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir ayaa lagu waramayaa inay isku dhiibeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kadib dagaal culus oo shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. hogaamiyaasha Ahlusunna wal Jameeca Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya iyada oo uu soo dhamaaday dagaalkii ka socday Dhuusamareeb. xarunta Inji oo ahayd halkii ay degnaayeen hoggaanka Ahlusunna isla markaana uu shalay dagaalka xooggan ka dhacay ayaa aroortii saakay u gacan gashay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa oo rasmi ahaan gudaha ugu galay. hoggaanka Ahlusunna ayaa iyaga oo bad qaba laga soo saaray xarunta waxaana hadda ay ku sugan yihiin oo ay la joogaan guriga madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. wararka ayaa sheegaya in loo sii duulin doono magaalada Muqdisho balse ila wareedyo ku dhow dowladda ayaa warbaahinta u sheegay in isdhiibistooda looga dhigi doono hab kale oo ah in ay nabad qaateen si loo dejiyo taageerayaasha ay leeyihiin. hoggaanka Ahlusunna ayaa shalay sheegay in ay doonayaan inay isu dhiibaan ciidamada AMISOM ama ay tagaan deegaanka Huurshe oo ay ku xoogan yihiin taageerayaashooda balse dalabkaas waxaa ku gacan seeray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ee dowladdu ay aqoonsan tahay uuna hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ah wiilka Macalin Maxamuud horeyna u soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya oo dhinaca Ahlusunna uga wakiil ahaa wadahadalada ayaa dalbaday in haddii ay isu dhiibayaan ciidanka dowladda loo ogolaado in ay kala doortaan madaxda ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya hogaaminaysa. wararka ayaa sheegaya inay dalbadeen inay isu dhiibaan Mascuud Maxamed Warsame taliyaha guutada 15aad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka oo uu markiisii hore ka soo galay dhinaca Ahlusunna isla markaana muddo ahaa taliyaha guud ee ciidanka Ahlusunna kaasi oo xirada ka soo saaray mas'uuliyiintan. xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa saakay degan waxaana xarunta Inji ku sugan ciidanka dowladda inkastoo uu ka muuqdo burbur aad u xoogan oo ka soo gaaray dagaalkii halkaasi ka dhacay ee aadka u xooganaa. arrintan ayaa waxa ay soo gabagabeynaysaa loolankii xooganaa ee tan iyo markii doorashooyinka ay ka dhaceen magaalada Dhuusamareeb ka taagnaa halkaasi iyadoona Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu u muuqdo in uu ku guuleystay inuu maqooniyo awoodii muddada soo jirtay ee Ahlusunna wal Jameeca. sidoo kale waxaa jirta in haatan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay isku dayayaan in ay awoodda saaraan sidii ay ammaanka u sugi lahaayeen waxaana saakay xaalad degnaan laga soo sheegaya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel oo shalay ay rabshado ka dhaceen. arrintan dad badan waxay u arkaan inaysan xal u noqon karin isjiidjiidka siyaasadeed ee soo laablaabtay ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ee dowladda federaalka Soomaaliya ay aqoonsan tahay iyo Ahlusunna wal Jameeca. Axmed Ducaale Geele Xaafna horey u ahaa madaxweynaha
maamulka galmudug uusan dhammaad lahayn islamarkaana weji cusub uu yeelan karo. Sidoo kale haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya iyo ahlu sunna ee Guriceel ka dhacayna waxa ay sheegayaan wararka aynu halkaasi ka helayno Guriceel gobolka Galgaduud in dagaalkaasi uu istaagay galinkii dambe ee shalay islamarkaana dowladda federaalk Soomaaliya ay ciidamo hor leegeysay Dhuusamareeb iyo Guriceel. Shalay galinkii dambe dayuurad siday ciidan laga qaaday magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka dageen qaybo ka tirsan Dhuusamareeb iyagoo u sii gudbay Guriceel islamarkaana ammaanka ayaa la sheegay in uu yahay mid adag. ciidamada halkaasi la geeyay ayaa waxay yihiin haramcad iyaga oo sidoo kale ay weheliyeen tiro ciidamo gorgor ah oo la sheegay inay si weyn u qalabeysnaayeen. xaaladda galmudug ayaa iminka degan waxaana weli harsan Axmed Ducaale Geele Xaaf oo ku sugan magaalada Gaalkacyo kaasi oo isna aan la ogaan karin sida uu ula macaamili doono Axmed Cabdi Kaariye Qorqor maadaama Qorqor iminka uu dib u soo jeestay islamarkaana uu u muuqdo in uu awood ku maquuninayo cid kasta oo uu arko in awood ahaan ay la tartami karto. ahlu sunna wal jameeca dad badan waxa ay qabaan in si sax ah haatan loola dagaalamay maadaama nidaamka dowladeed ay kasoo horjeesteen islamarkaana waxaa loo arkaa haddii ahlu sunna wal jameeca wadadan la marsiiyey in haatan ay sidoo kale dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamulka ay aqoonsan tahay ee galmudug wada kale marsiin karaan Axmed Ducaale Geele Xaaf madaxweynaha maamulka galmudug. isla wararkaasna haddii aynu ku laabano ciidan kasoo dhaawacmay dowladda federaalk Soomaaliya oo kusoo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa la geeyay magaalada Muqdisho waxaana la dhigay cisbitaalka Digfeer ee magaalada. dhinaca kale diyuurado siday ciidan ayaa iyaguna waxa ay gaareen isla magaalooyinka waaweyn ee gobolka Galgaduud halkaasi oo dadka deegaanku ay sheegeen tan iyo xalay in dhaqdhaqaaq aad u culus ay ka dareemayeen. ahlu sunna wal jameeca ayaa iminka hadda u muuqata in si toos ay isugu dhiibeen dowladda federaalk Soomaaliya halkaas sidoo kale lasoo sheegayo in xaaladda ay degan tahay xarunta injina iminka ay gacanta ugu jirto dowladda federaalk Soomaaliya ciidamadeeda iyo kuwa maamulka galmudug ee sida tooska uga amar qaata Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha aan weli la caleema saarin ee dowladda federaalk Soomaaliya dhowaan ay ku taageertay doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb inkastoo ay dowladda federaalk Soomaaliya weli war rasmi ah ka soo saarin dagaalka soo gabagaboobay ee ka socday shalay barqadii ilaa iyo galabkii magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel. markana Jubbaland fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aad kala socoto Hiil Shacab TV. qaar ka mid ah ciidamada Jubbaland ee Mandheera ayaa la sheegay inay u goosteen dhinaca dowladda federaalk Soomaaliya. saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado ayaa sheegay inay ku soo biireen qaar ka mid ah ciidamadii Jubbaland ee ku sugnaa magaalada Mandheera. saraakiishan iyo ciidamada la sheegay in ay soo goosteen oo qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in habeen ka hor laga keenay degmada Dobley kadibna loo gudbiyay dhanka Mandheera oo ay ku sugan yihiin ciidamo kale iyo xubno uu ka mid yahay wasiirka amniga Jubbaland. ciidamada la sheegay inay soo goosteen ayaa ku warmay in loo sheegay inay cadow la dagaalamayaan sidaasna ay ku soo baxeen. annaga waxaa nagula soo kaxeeyay cadow la dagaalan balse diyaar uma nihin inaan la dagaalano ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaasi ayaan ku soo baxnay uguna soo wareegnay Beled Xaawo ayay yiraahdeen qaar ka mid ah ciidamada la sheegay inay soo goosteen oo muuqaalo laga duubay warbaahinta lagu baahiyay. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gado ahna madaxa amniga degmada Beled Xaawo Cismaan Nuur Xaaji Macalimo ayaa sheegay in dowladda Kenya ay magaalada Mandheera ka soo abaabulayso weeraro lagu soo qaado Beled Xaawo oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. Cismaan Nuur Xaaji ayaa sheegay in ciidamada ku sugan Mandheera ay yihiin kuwo weli mushaar ka qaata dowladda Soomaaliya lagana jari doonin balse ay rajeynayaan in ay halkaasi ka soo tagaan oo ay yimaadaan magaalada Beled Xaawo.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa Khamiistii ugu baaqay dowladda Kenya inay si degdeg ah u joojiso xadgudubyada ka dhanka ah madax-bannaanida Soomaaliya iyo falalka xasilooni darrida ah ee ay ka abuureyso qaybaha kala duwan ee dhaca xuduudda labada dal, isla markaana xilligan aan loo baahnayn in ay Kenya iska dhaadhiciso in Soomaaliya aysan awood lahayn, balse afhayeen u hadlay Kenya waxa uu sheegay in aysan ka warqabin cabasho dhab ah oo ay u soo gudbisay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana waxa uu sheegay in haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka caawinayso habdhaqanka Kenya ay ahayd in safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho loo soo mariyo, taasina aysan dhicin. Waxaana iminka muuqata in Jubbaland wax war aysan ka soo saarin ciidankan la sheegay in ay u soo goosteen dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda ku qaybo ka tirsan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Hiil Shacab TV waxa uu ku tiirsan yahay waa taageero